xogayaa xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee gobolka Togdheer Cabdisamed Axmed Boon oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xarunta guud ee xisbigu ku leeyahay magaalada Burco ayaa ka hadlay xadhiga warbaahinta Soomaaliland oo uu sheegay xogayuhu in muddooyinkii u dambeeyay uu si turxaan la'aan ah u soo noqnoqday isagoo xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay xadhiga iyo caburinta warbaahinta iyo bulshada waxa kale aan ka cambaaranayaa xadhiga suxufiyiintii shalay la xidhay la sii daayay iyo kala hadhay badri waxaan leeyahay suxufigu waa aragtidii bulshada ama indhihii bulshada waa xaaraan baan leeyahay xadhigiisu waxaan leeyahay cid kastoo qusaysana xorriyadiisa loo soo celiyo inta suxufi xidhay ama dhibaataysan yahayna bulshada dhibaataysan waa bulshada iyo ummaddu halka iska gaadha waa media haddii media la caburiyana waxay u muuqataa in shuruucda qaranka lagu tumanayo oo kaalinta afraad geesta kale xogayuhu waxa uu ka hadlay barnaamijka shaqo qaran ee ardayda Soomaaliland kaasi oo xukuumadda Soomaaliland uu ku eedeeyay in ay musuqmaasuqday isla markaana guudka kaga dartay arday aan ahayn kuwii ku soo baxay barnaamijka shaqo qaran waa sida uu hadalka u dhigay waxa kale aan cambaaraynayaa shaqo qarantii barnaamijkii ka socday Hargeysa war xamar baynu kula culuwnay wax walba aniga leh gobolada waqooyi hadaynu nahay Soomaaliland iyo koonfur waxayna dhex maray colaadii ugu badnay wax walba xamar baalqday si leeynoo lahaa ayuu halgankii ku galay war Hargeysana xamar kale noqotay Hargeysana meenu ka go'aa wax walba Hargeysa leh 400 in lagu qabtaa waa xaraan baan imtixaankooda gobol walba waxa inta la qaybiyo in koota loo xidho gobol walba si soo tartamo oo gudihooda ay ku tartamaan oo Burca waxay leedahay Boorama waxay leedahay Gabiile waxay leedahay la saanad waxay leedahay Caynabi waxay leedahay gobol walba wixii uu isaga inta loo qaybiyo gobolada Soomaaliland oo gobol walba shaqo qarantiisu ay ku tartantaa ama dhalinyaradiisu ay ku tartantaa baa war wax walba Hargeysa la qaadan kari mayno hadii halka leedkii go'aysay taagantii Hargeysa ama qaranka wax u qaybiyaan madaxweyne tiyaama inaguna aynu Hargeysa ka go'no ilaa xamar bas aynu uga go'nay saasun baa sababtu taana waan cambaaraynayaa xaraan baan ahayd imkana in lagu qabtaa waa xaraan gobol walba koota lagu xidho lagu soo celiyo imtixaankiisa war dhaqaale wadanka Axmed Maxamuud Ibraahim Boqorre laanta afka Soomaaliga codka bariga Afrika magaalada Burco.